ورسولك يجوهري الله سبحانه وتعالى وأصدر بشرك وآبه اللبات بني آدمك سيدو كله وحو كمديها شنت رسول أولي العزمك قوم كيسو وقوم كيجوهري الله سبحانه وتعالى وكعقاوي أرلذ كركذا وحين أجدنا النبي الله نوح عليه السلام كسر هذا الضوضيا مقالك إن مانتا أي نكو يجدنا قصة النبي الله نوح عليه السلام. انت اينا نقول قل المقالكينا هدياد نقوع سبتاه نقو صابير هدياد هورنو لجوكتينا مقالك الله يكسر ولو ذاك أصحاب هذا سي وقادن إيقنا معلومات نوعا وكلا. نبي الله إدريس عليه السلام مركي أجيريودي قوم كيس وحا كمدها شنين أو صالحين شنتين أو صالحين تها وحي أهايان كو الله سبحانه وتعالى مربو البقوع عباديستا قوم كي نبي الله إدريس عليه السلام كوي كسوهري وحي كدين جرين شنتاسي تنين وحي نوجد جرين عبادة الله سبحانه وتعالى شنتين أيا جيريودي qoomkii waa ay murugoodeen waxay nagu tashteen inay sameeyaan dhagaxyo u eg nimankii dhintay si ay ugu soo xasuustaan oo ina Allah subhanahu wa ta'ala u caabudaan markii ay soo xasuustaan nimankaasi ta wanaagsan. Shantaas nin ee wanaagsan magacyadooda waxay kala ahaayeen Waddi, Subaac, Yaquuth, Yacuuq iyo Nasri. In muddo ay Allah subhanahu wa ta'ala sidaasi ay ku caabudi jireen ilaa markii dambe iyagoon ay geeriyoodaan oo na yimaadaan jiilkii ka dambeeyay ayaa isweydiiyay aabayaalkiina maxay ku sameyn jireen dhagaxyadani. Ibliis ayaa iskaga soo dhigay sida bani aadamka oo kale oona ku dhahay dhagaxyadani aabayaalkiina ayaa caabudi jiray waxayna u caabudi jireen si wax walbo iyagoo ay rabaan ay u wadiistaan wax walbo iyagoo ay ka cabsadaan ay ugu magangalaan. waana meesha ay ka bilaabatay caabudida asnaamta iyo Allah subhanahu wa ta'ala in loo shirka yeelo. In muddo markii Allah subhanahu wa ta'ala ay sidaas ugu kufrinayeen ay Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu soo diray nabiyullaahi nuux calayhi salaam. haddii inuu taariikh kooban ka bixino nabiyullaahi nuux calayhi salaam abtirsigiisu waxa uu ahaa nuux ibnu laamaka ibnu matushaalikh ibnu idriis. fadliga Allah subhanahu wa ta'ala uu u gaar yeelay nabiyullaahi nuux calayhi salaam waa inuu ahaa rasuulkii ugu horeeyay ee Allah subhanahu wa ta'ala uu soo diray bani aadamka waxa uu ka mid yahay shanta rasuul ee ulul azmiga. quraanka ayaa lagu sheegay nabiyullaahi nuux calayhi salaam ku dhawaad 43 jeer waana rasuulkii ugu waqtiga dheeraa ee ummadiisa u digo wuxuuna ummadiisa u digay ku dhawaad 950 sano. nabi nuux calayhi salaam markii Allah subhanahu wa ta'ala uu soo diray qoomkiisa waxa uu ku dhahay anigu waxaan ahay mid idin diga oo digidiisuna ay cadahay waxaana idin leeyahay alla ka cabsada oo amarkiisa qaata. balse hadalkiisa nabi nuux calayhi salaam dhagaha ayay ka foreysteen waxayna dhihi jireen adigu waxaad ina dheertahay ma jirto dadka adigu ku raacay waa kuwii ugu liitay bulshada. markasta oo xagga rabbi uu ugu yeero waxay dhihi jireen adigu waxaad tahay qof waalan. juhdi iyo dadaal badan uu bixiyay kadib wuxuu ugu yeeri jiray in mar walba Allah subhanahu wa ta'ala uu xusuusiyo. haddii qof iyagoo ka mid ah uu geeriyoonayo caruurtiisa ayuu dardaarmi jiray waxaana ku dhihi jiray ninkaasi iska ilaaliya yuusan diinkiina idinka bixinin. nabi nuux wuxuu sii waday dacwadii haddana qoomkiisa gacmaha maysan kala bixin fisqigii iyo xumaantii wuxuuna dacwadii ku waday 950 sano uuna ugu yeeray in Allah subhanahu wa ta'ala ay kaligiisa caabudaan. waxaa la sheegay inay rumeeyeen dad tiradooda ay gaarayso ilaa 82 qof. waxaase la yaab leh in xaaskiisa ay ugu dhaweed isagu aadana rumaynin. nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayaa alla baryay wuxuuna yiri rabbiyo aniga waa la iga adkaaday ee ii gargaar. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u waxyooday nabiyullaahi nuux oo u sheegay inaysan rumayn doonin ilaa intii hore ay rumaysay maahina sidoo kale uusan isku murjinin waxa ay sameynayaan nabi nuux. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa amray inuu sameeyo dooni ay raacaan isaga iyo intii rumaysay. nabi nuux calayhi salaam wuxuu gudo galay sameynta doontii la amray. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u waxyooday sida loo sameeyo doonta. qoomkiisa markii arkay nabiyullaahi nuux oo sameynaya doontii way ku jeesjeeseen waxayna dhaheen nuuxow waxaad noqotay fuundi oo maskadiisa nabinimadii. nabiyullaahi nuux ayaa ugu jawaabayay haddii idinku aad nagu jeesjeestaan inaguna idinka alle
waynu ku jeesjeesi doonaa. Nabi Nuux calayhi salaam wuxuu dhisay doon aad u weyn oo ka kooban 3 dabaq. Waxaa la amray Nabiyullaahi Nuux inuu ka qaado xaybaan walba lab iyo dhadig. Doonta meeshii hoose dabaq ugu hooseeyay waxaa la dejiyay dugaaga, halka qaybta dhexe la dejiyay kuwa aanan ahayn dugaaga. qaybta sarena waxaa degay Nabiyullaahi Nuux iyo intii rumaysay. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday Nabiyullaahi Nuux oo ku dhahay haddii uu tanuurka ka soo baxo biyo waa markii uu bilaabanayay cadaabka, adigu waa inaad fuushaa doonta. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa cirka ku amray inuu soo daayo biyo, dhulkana uu soo daayo biyo. Biyihii ayaa dul maray buurihii, halkaasina ayay ku qarqoomeen qoomkii Nabiyullaahi Nuux. Markii Alle subxaanahu wa tacaala uu Nabiyullaahi Nuux amray in xayawaanada uu ka qaado lab iyo dhadig uuna saaro doonida, Nabiyullaahi Nuux wuxuu u wacay wiilkiisa, balse wuu ka dhag adeegay. Wuxuuna ku jawaabay, anigu waxaan kaga badbaadi doonaa biyaha buuraha dhaadheer. Balse Nabiyullaahi Nuux calayhi salaam ayaa ku jawaabay, maanta meel aad kaga baxsanaysid ma jirto ciqaabta Alle subxaanahu wa tacaala. Ilaa qofkii Alle subxaanahu wa tacaala u naxariistay unbaa badbaadi kara. Halkaas ayay ku qarqoomeen qoomkii Nabiyullaahi Nuux. Haddaba qisada Nabiyullaahi Nuux maxaynu ka baran karnaa inaga? Shaydaanka waa cadowga koowaad ee bini'aadamka. Sidoo kale shaydaanku wuxuu sabab u yahay in la caabudo asnaamta oona loo shirki yeelo Alle subxaanahu wa tacaala. Nabiyullaahi Nuux waa aabaha labaad ee bini'aadamka. Duufaantu waa mucjiso Rabbi subxaanahu wa tacaala isagu ay u gaar tahay, oona ciduu rabo ku cadaabo, ciduu rabona ugu nimceeyo. Daawadayaal, muuqaalkeena maanta intan aynu kusoo gabagabaynaynaa. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hor noola joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Inta idinku kulmi doona muuqaalkan muuqaalka xiga, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.